الداود يقول سلوا هذا مركز برنامج كيني رفض وأينو مالين با قضب ديرته كسائر وبرنامج كيني وبرنامج كيجوا برنامج كأن وضع اللحين استمر كانوا وقبنيه نستوى كله قربت وحنا قبنيه كهذا دلكين سومالي لان دلكين سومالي لان وذوقت هيرو وجمهورية حرها مضح بنان سدا دستور كنا كتاله وشيء جاي يقضب كوباد بق هدول اللي بقولوا إن دلكي بريحن والله صادقت تطبع صادقت يدونايا إن عرشيان markay arkeen dadkan iyo dalkan tashaday isku duubanay hawlahooda wato alla waxa la yiri ma garanaysaay acdaadu way farabadan tahay ayaa waxa ay keentay in dad badan maanta ay soo haweystaan horta marka hore dadkeena waxa muhiim ah in la barto waxa loo yaqaano in dadka la dhiso ayaa muhiim ah waxyaabaha i'tiraafun bay moogtay shaqadeena oo laakiin i'tiraafku ma horta marka hore in dadka la dhisiyo dalka la dhiso ayaa wax walba ka muhiimsan dalkii dadkeena dhistaa wax walba ka muhiimsan human capital waxa loo yaqaan marka dadkeena in la dhiso dastuurka la baro kow wadaniyada la baro laba axwaasheena marxaladaheena inuu marno saddex waxyaabihii nagu dhacay ma garanaysaa inuu sameeyay xasuuqa iyo xabaal daaweynka iyo gadoonka iyo ma garanaysaa inuu sameeyay wax laga baro dadka weeyaan isirsifayntii lagu sameeyay ilaahay looga sahlay ilaahum baa mootay nala baxsana waa lagu tala galay oo inta kala bara laakiin dadkii markii shaqooyinka waxa wada xogaa ka bolosiga dibadda xogaa weyn ka wakiiraan way naga jabantahay markii weyn la raado i'tiraaf iyo xamooti i'tiraaf kartu waxa ka horeysa markii aad u solisto laakiin dadka waliya dalkii oo qabya in i'tiraaf lagu boodo ma qumana dadka cadaad ah ee nagu mashquulsan waxa la naadeeran dadkan waa dad iyo dal tashaday nagu mashquulna shaqadiina aad qabsada billaah alayk duca qabaya shaqadiina qabsada waa ummad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed dadka lama xaasdaan ku loogu xulin xaasda waa Soomaalida ummad Soomaaliyeed waa nin walaalkaayo Soomaaliya oo wax qabsaday oo horumar wada artay xaaladda Soomaalida ku sugan tahay ninka walaalkaayo wax qabsayna dhiirigelisa sacabku tuntuwiya waayo halkiisa la adiga ku dhaala sharafta ku tahay beelhalaaya noo degan waa tan Soomaaliya ma macna ku sameynaysa laakiin meesheena ma garanaysaa ilaahay ku istaagtay uu hirigto marabooban ku noqonaya dadka Soomaaliya ma afacayso xasnimada noocaas timacadii abuu loo jiray baa gabiyo wuxuu yiri garbaduub hadii loo xiriig marka wuxuu ka hadlayay xasnimada iyo ma garanaysaa kurwaada tiganay Soomaalidu ma garanaysaa iskula mashquulshay wuxuu yiri garbaduub hadii loo xiriig gabi ka laalaado gacantii nin lihi goynaya way gomadan tahay nin walaalkii geed ugu jira geesi noqon warbaninka 24 caalamku waxa la yiraahdaa qolyahan galbeedka ama gaalado dhan umuuma meel joogtaba laba sifis iyo kaga duwayn baa leeyahay kaga duwayn Soomaalida kaga duwayn kooda guuleysta saxabka u tumaan way garab galaan way dhiirigeliyaan kooda guul daraystana way ka garab weeyaan gacanta ay qabtaan oo way tuqaantuqada ka saaraan iyo dalcad iyo tiirada uu ku qufay ay ka saaraan laakiin markay naga shaqadeen waxa weeye waa negative ay shaqayso waa la deegun waxa la leeyahay ka faa'iideyn garanaysa haddii waxa garta Soomaa marka wanaag in la isfaa wanaag la iska shaqeeyo haddii Soomaali nahay in wanaagsanaa waa uma ahayd boqol jeer oo isu laabxana dad wanaagsan oo isdiirigeliyay noqon lahayd laakiin sidaan markaan ku suganahay si inaan afxaysan inaga maaha haddii alla ugu roon yahay taasi waa taa waxa ku soo gabagabeynaya tixyaro aan dalka ugu tala galay waxaan leeyahay dawanka baxaye dhigahayga deeqee aan ku diirsanayo waliga dib hawl noqon hadaleemin abidka daadihu ujeedada darar noqon maalo lagu doojo beera isku duubnideennana wax u daran u diido wax u dana u doodo doorkaaga ka ciyaar baa leeyahay doorka shacabkana waxa la horyaarhay waxa ay Soomaalidu xukuumadda raqbu waa ku rageeday waxaan inaga leh ayuu ilaashay saasay noo balan tan iyo kulan dambe waa mar kale iyo ku kulmiteen dib u kulmi doono waqtigiisa insha Allah ta'ala barnaamijkeena qubanaha wariye Rashid Barcad maanta wuxuu ku dhaafayaa sida ayaan ma dhaafniyo waliba kulan dambe xiiso leh